waxaa heshiis laga gaaray dhibaatadii ka dhacday deegaanada xadka Soomaaliya Galmudug iyo Itoobiya dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya heshiiskan oo ka dhacay magaalada Jijjiga ayaa waxa dawladda Itoobiya oo kale ugu ahaa ambassador Shamsuddin oo ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar dhanka dawladda federaalka Soomaaliya waxa ka socday wasiirka boostada iyo isgaarsiinta mudane Maxamed Jaamac Mursal madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug mudane Cabdikariim Xuseen Guleed iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan heshiiskan ayaa waxa kamid ah sidii nabad isjacayl iyo darasnimo ugu wada noolaan lahaayeen shacabka labada dhinac iyo sidii la iskaga kaashan lahaa la dagaalanka ururada argixisada ee al-shabaab iyo obo loogana hortagi lahaa wax kasta oo dhibaato ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka walaalaha ee labada dhinac madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo ka hadlay goobta heshiiska ayaa cadeeyay in labada shacab ay yihiin dad walaalo ah oo laba dal kala sida darteedna xukuumadda deegaanku ay ka shaqeynayso sidii loo ilaalin lahaa midnimadooda loogana midhadhaliyo heshiiskan waxa uu ugu baaqay shacabka labada dhinac inay walaaltinimadooda xoojiyaan sidii hore baan u sheegnay shacabka labada dhinac degan waa dad walaalo ah oo dhaqan iyo diin iyo helba wadaaga balse laakiin waxa weeyaan xuduud kala qaybiyo laba dal ah saas la ajigeed waxaan ilaahay ka rajaynaynaa aaminsanahayna in heshiiskani waxa weeyaan noqon doona mid dhala ka deegaan ahaana waxaan aaminsanahay oo aan ku shaqeyn doonaa hadii ilaahay yiraahdo dadka shacabka walaalaha inaan ka shaqeyno midnimadooda iyo walaaltinimadooda inay habeeyratay wax dhibaato ah oo soo dhaxgelin shacabka labada dhinacna waxaan leeyahay waxa tiin dad walaalaha oo dhashay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa hoosta ka xariiqay in Itoobiya iyo Soomaaliya yihiin laba dal oo iska kaashada la dagaalanka ururada argixisada loona baahan yahay in la sii xoojiyo iskaashigooda dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya oo ah laba dawlad oo jaar ah hadda ka horna waxa weeye kan wada shaqeynay dhanka nabadgelyada gaar ahaan ururada argixisada haatana u baahan inay si taageersadaan labadooduba markasta waxaan leenahay xiriirkaas wuxuu noqon doonaa mid xoojisan madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa sheegay in la joogo xilli midnimada iyo wada shaqeyntu ay tahay qiimo looga gudbo caqabadaha isla markaana Itoobiya ay ka go'an tahay in la sii adkeeyo midnimada iyo wada shaqeynta labada dhinac mar kale waxaan leeyahay waftiga sharafta leh ee dawladda federaalka Soomaaliya waddankiini labaad baa timaadeen waxaan dhigi karaa waxa weeyaan xilli midnimadu ay adduunka wax ka taraysa weeyaan ama la ogaaday midnimada waxtarka ay leedahay iyo dadku inay isku waxa weeyaan istaageersan wanaag ay leedahay xilli la ogaaday ayaan ku jirnaa marka in wax ka san iska taageersado oo sidii awal la iskaga taageeray ay taageerada sii socoto dhankanaga hore si ugu go'aad ba hadana ugu go'antahay halkana waxaan doonayaa inaan ka salaamo oo ay gaarsiiyaan fariin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh fariintan ay gaarsiiyay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar yaa u mahad celiyay cid kastoo gacan ka geysatay heshiiskan madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Soomaaliya mudane Cabdikariim Xuseen Guleed ayaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uga mahad celiyay sida uu isku xilqaamay in heshiis laga gaaro mushkiladii dhacday isla markaana dhankooda ay hirgelinayaan heshiiskan nabadda iyo heshiiskuna ay dan u yihiin Galmudug runtii waxa sharaf weyn oo amaanta in halkaan aan heshiis nabadeed ku saxiixnay runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha dawladda deegaanka sidii ni wanaag lahayd walaalnimada lahayd dirisnimada lahayd oo marka horeba wafdiganagu soo dhaweeyay wada hadaladiina oo runtii meel fiican oo wanaagsan oo uga istaagay una daadihiyay anagu hadaan nahay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan reer Galmudug nabadda anaga dan noo tahay heshiiska anagu dan noo yahay maxaa yeelay dad waxaan nahay hadda ka soo kabanaya burbur iyo dagaalo sokeeye iyo dhibaato iyo colaado ka soo kabanaya ayaan nahay mudane Cabdikariim Xuseen Guleed ayaa cadeeyay in heshiiskan uu dhidibada u taagay in la iska kaashado cadowga midaysan ee Itoobiya iyo Soomaaliya wada leeyihiin lana xoojiyo xiriirka walaaltinimo iyo wada shaqeynada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Galmudug waxa uu mahad celiyay qaybihi kala duwan ay gacanta ka geystay in heshiis la gaaro waxaan u aragnaa guud ahaan dalweynaha Itoobiya gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaaliyeed dad dariskeena dad walaalaheena dad wax badan ay naga dhaxeeyaan dad iskaashi iyo wada shaqeyn iyo inaan hal meel uga soo wada jeesano cadowga midaysan aan leenahay loo baahayaa in uu aragnaa haddana heshiiskani wuxuu dhidabad u aasayaa iskaashigaas iyo walaalnimadaas iyo wada shaqeyntaas ayuu dhidabad u aasayaa maanta wixii ka dambeeyahay dad intii hore isaga dhow oo intii hore wada shaqeyn iyo darisnimo iyo iskaashi isaga dhow ayaa noqon doona insha Allah taala madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan ayaa shacabka iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya uga mahad celiyay sidii diiradii loo soo dhaweeyay muddada ay Jijjiga ku sugnaayeen isla markaana oo ku hanweeyay in heshiiskani muddo dhalo waxaan isleeyahay waa maalin aad farxad leh waan ka mahad celinayaa marka hore soo dhaweyntii iyo qaabilaadii iyo
wax kastoo wanaagoo madaxweyne cabdi maxamed cumar uu noo sameeyey intii aan joognay iyo xaqaaniyad wanaaggii ka muuqanayay guud ahaan shacabka reer dowladdeegaanka soomaalida Itoobiya gaar ahaan reer Jigjiga iyo say ugu helanayeen iyaga iyo saraakiishooda ciidanka iyo dhaqankooda iyo qof kasta wuxuu nagula hadlayay aad baan uga wada mahadcelinayna waana waxaan ku faraxsanahay waxaan isleeyahay reer mudug baa maamaha laga soo xigin jiray hadda maamahadii reer mudug hadday taaganta xalay dhalo yahay in xalay dhalo laga noqdo oo arrintaas ay noqoto arrin meeshaas ku soo dhamaatay waana rajaynayaa inay xalay dhalo noqonayso haddii ilaahay yidhaahdo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa madaxweynayaasha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo Galmudug ee Soomaaliya Cabdi Kariim Xuseen Guuleed buu uga mahad celiyay sidii niyad samida ah ay door balaaran uga ciyaareen in mushkiladda laga gaadho heshiis aad iyo aad baan labadiinaba Cabdi Xaafar iyo Cabdi Kariim ugu mahad celinaya sida niyadda fiican ee niyad samida leedahay arrintaas soo qaadeen iyo sida ay idinka tahay iyo sida ay go'aanka idinka tahay markaan labadiinaba la sheekaysta arrintaasi soo noqon dambana inayna yeelanin inaadna fulinaysaan xuduudaha kalena insha Allah aan rajaynaya in kulligood nabadda laga wada shaqeeyo heshiiska kadib wafdigan ayaa si nabad uga ambabaxay magaalada Jigjiga